caruure beri waxaa jiri jiray diin iyo dawaco. diinku wuxuu haysta guri aad u wanaagsan oo u qurux badan, dawacadana waxay lahayd guri daldaloola oo meel walbaba ka jajaban. maalintii dambe ayaa dawacada waxay aragtay roob aad u xoog badan oo cirka kasoo socdo. dawacada waa xayawaan caqli badan, way fikirta markiiba waxay xusuusatay inuu diinka lahaa guri qurux badan oo aad u fiican. dawacadii waxay u tagtay diinkii, waxay ku tiri diino gurigaaga haddii colku soo weerar meelaa ka baxdid ma qabtid, wuu xirxiran yahay, hal irid keliyuuna haystaa, laakiin aniga haddii la isoo weeraro gurigayga wuxuu leeyahay daldalool badan meel aan ka baxo. diinkii wuxuu ku yiri miskiin u ahaa dawacooy guriga iga bedelo. dawacadii waxay tiri maya maya gurigayga kaama bedelan kari. markii dambeed suu baryaay way ka yeeshay dawacadii markii ay guriga ka bedelatay roobkii yaa yimid. diinkii gurigii roobkii daldaloolay wuu kusoo da-ay, wuu qoyay, wuu qarqaray. dawacadiina gurigii diinka oo fiicnaa iska seexatay, wax rooba ma ay dareemin. maalinka dambe wuxuu yiri dawacooy waa isirtay gurigayga isii. dawacadii waxay tiri maya ballanta lagama buuxo, aniga gurigaaga maanaa kaa xoogso imaada baryinin. sidii ayay diinkii uga qaadatay gurigiisii, isagana guri la-aan uu ku noqday, iyadana guriga fiicnaa ay ku qaadatay.